Warar hadda soo dhacaya degdeg ayaa waxay sheegayaan in Iiraan laga cabsi qabo inay ku ekaysiiso dagaallo meelo uusan dagaaladu hadda aysan gaarin ay ku ekaysiiso dagaallo aad iyo aad u waaweyn. Maraykankii oo afka qayla ku shubtay iyo Iiraan oo ku goodinaysa in Maraykanka dhexdiisa ay ka bilaabi doonto dagaal uusan Maraykanku ka soo kabsan doonin lagana sheekay doono wixii hore ay ka sheekay doonaanin. Iran oo ka darnaatay sidii la moodayay oo ay ka darnaatay adduun weynaha oo afka qayla ku shubtay iyadoo kusii goodinaysa inuu bariga dhexe uu huluc aad iyo aad u weyn oo laga sheekay doono la oran doono ma qiyaamihii baa yimi inuu ka dhici doono ayay ku goodisay Iiraan haddii Maraykanku uusan ka daadguraysan ciidamadiisa ka jooga bariga dhexe. Iiraan oo aad iyo aad hanjabaad khatara u diraysa Maraykan iyo xulafadiisa Israa'iil. Sidoo kaleeto Israa'iil iyadoo ku ekeysisay duqaymo oo magaalooyinkii waaweynaa oo Israa'iil oo hulcaya hulucu cirka isku shareeray. Sidoo kaleeto Iiraan waxaa laga cabsi qabaa inay u wareejiso dagaaladu meelo aysan ka jirin laakiin dhibaatadu